180 arday ayaa ka qalin jabisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Kismaayo taas oo maanta munaasabad loogu qabtay hoolka Daawad ee magaalada Kismaayo. Munaasabadda qalin jabinta waxa ka soo qayb galay madax ka socotay labada gole ee dawladda Jubbaland, waalidiin iyo waliba odayaasha dhaqanka Jubbaland. qaar ka mid ah ardayda maanta qalin jabinaysay ayaa Waama TV uga waramay qalin jabinta ay maanta qalin jabinayaan waxyaabaha ay uga dhigan tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وآمن أحمد حسن أحمد وكترسن أرديدا دميتي جامعة كسمايو يونيفرسيتي قارها فاكولتي اوف اكاونتنج اند فاينانس waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan aabahay la dhameeyo waxbarashadiisii waxay tahay waqti qurux badan ilaahay baa mahad iska leh waxaan rajeynayaa dhammaan inay u dayan doonaan dadka kale insha Allah rajeynaa waqtigan oo kale inay la helaan waalidkooda ilaahay baa mahad iska leh oo faraxsanahay waxaan aad u hambalyeynaya aabahay oo noqday maanta garabkayga la dhameeyo waxbarashada alxamdulillah farxad la soo koobi karo ma aha magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Faarax waxaan ka baxay jaamacadda Kismaayo kulliyadda computer studies aan baad ugu faraxsanahay maanta maalinteeda ay tahay waan ugu mahadcelinayaa dadkii soo imaaday waan ugu mahadcelinayaa jaamacadda iyo waxa soo bartay aad baa ugu mahadsantiin. Madaxweynaha jaamacadda Kismaayo Maxamed Wali Cabdi Aadan ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan ee ay soo martay jaamacadda Kismaayo oo ahayd jaamacadihii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay Jubbaland. waxa kale oo uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in ardayda maanta qalin jabinaysa ay ka shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo in loo baahan yahay in shaqooyin loo abuuro ardayda wax soo baratay. marxaladda koobaad waxay ahayd in jaamacaddu la aasaaso oo mafashilmaysa waan ognahay duruuftan ku soo aasaasinay reer Kismaayo u badan tihiin laba hool oo iskoolka Jubba ka soo horjeeda oo maxay ahayd laga sameeyay alwaax iyo khashab iyo jiingad ana ardayda meeshaas ugu khudbadeeyay مشروع كسر الله أساسنا وحلاقة بعالم كمشاريع ذا ماركتينج مركز لفيري بقول كيف عشان يستديتنا وسجاشن وفشل ما مركز مفشل من نجاح بالين كانت ضدك أن لا تشتري إنه حيلها هاي مدريون إنسان مركز إلهي مهدي ما أنت هل كاسي سوق عدي إلهي فد جيسا ثم جهود كسمايو يوالدين يمامل يمعلمين يوم هيدا التوفيق وغيبوين كقاعدتي يا هل كسوق عدي jaamacaddu marka saddex kacleynta maanta ay marayso barnaamijtay inay soo kordhiso kamida waxa kamida in ay marxaladii khatarta gudubtay way qaan gaadhay way bislaatay markay bislaatay in wax badan baan aragna kulliyadda hebel ma furtaan kulliyadda beeraha kulliyadda maaragtay injineeriyada jaamacadda Kismaayo waxa ruuyadeeda kamid ama hadafkeeda ama targetkeeda marba intay awoodo bulshada ay wax qiimo badan ay siin karto inayna sii boodboodin marka waxaan isla xilliga hadda waxa la soo gaaray aan mesela digriga jaamacadda Kismaayo bixin jir digriga koobaad in heerka labaad ee tacliinta ay u gudubto oo master la furo idinku bishaarintaas jaamacadda Kismaayo waxa kale oo ay jaamacadda Kismaayo hadda idinku bishaarinaysa in professoro ay ku soo biirinayso tayada macallimiinta. wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa isaguna ka hadlay munaasabadda qalin jabinta isagoo xusay in waxbarashadu ay lafdhabar u tahay horumarinta bini'aadanka. waxbarashada waxay ku qiimo badan tahay inaysan noqonin qolfoof bini'aadamku iska sheegto. waxbarasho waa wax la rabo ruuxa inay ka muuqato dhaqankiisa iyo suluugiisa iyo tacaamulkiisa bini'aadamku la tacaamulayo. taas baa waxay ka samayn kartaa saameyn bulshada ku samayn kartaa. annaga midaan marka doonayna waa midaas Soomaaliya waxbarashadeeda xaqiiqatan meesha ay soo martay isaga sheekaymayno dadka halka fadhiya in badan oo kamid ah burburkii iyo wadankii halaaga ka dhacay maysan ogeyn waa dad yar yar oo ka dambeeyay yani wixii dhacay ka dambeeyay marka waxaan rabaa inaad ogaataan Soomaaliya waxay aan jirtay wadamada Afrika waxbarashada ugu horeeya ee aan jirtay waddankeenu markuu wadan ahaa Afrika wadamada oo u waxbarasho fiican bay ahayd burburkii yaa wuxuu inaga burburiyay wixii oo dhanba iskuulaadkii baa burburay waxaa burburay macallimiinteeni dadka wax bari jiray ardadii baa kala tegey beddelkeedina waa ogtihiin oo waxaa la bartay qabyaalad iyo maaragtay waxa la yiraahdo waxaan macno lahayn yaa la bartay waxbarashada qiimaheeda hadda isaga sheekayn mayno maanta waxa alxamdulillah rabbil caalamiin in waxbarashada Soomaaliya si guud dib u habeyn loogu sameyn doono oo ka wada shaqeynayno annaga iyo wasaaradda federaalka Soomaaliya
oo jaamacadaha ay leeyihiin midowga jaamacadaha Soomaaliya oo imtixaanaadka la mideeyay oo manaahijtu ay midaysan yihiin oo la sameyn doono gudiyo tacliinta sare ah gudiyo manaahijta ah gudiyo imtixaanaadka waxa soo dhan aan rabno dib mar labaad in Soomaaliya waxbarashada loo hagaajiyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa maanta isaguna la dardaarmay ardaydii ka qalin jabinaysay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda magaalada Kismaayo adduunka waxa uu mudan uguna qiimo badan waxbarashada heerkii waxbarashada ugu wanaagsaneed waad soo gaarteen sidaad waxbarasho ma dhammaato laakiin heerkeeda ugu wanaagsanaa maanta waad maraysaan markaan la hadlo jaamiciinta ka soo gudubta ardada maanta ardayda ka soo gudubteen magaciina waa jaamiciin inaad bulshada wixii ilaahay dan baray aad ku soo biirisaan baan idinka sugayaa dhammaan intii fursadda u heshay inay maanta ka qalin jibiso dafcaddaana waxaan leeyahay hambalyo annaga dowlad ahaan waxaa hortiina ka ballan qaadaynaa ilaahay hortiisa haddii daan qiimaha badan waa guddoonnay qalbigaan saarannay hay-adaha kale ama shirkadaha kalena waxaan leeyahay nala guddooma haddii daan qiimaha badan oo maanta gacanteenna soo gashay aan ka faa'iidaysanno waa hadiyad aad iyo aad u qiimo badan Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto Wama TV Kismaayo